وفيديو argagax leh marka ay tusiyay ula dhaqmayaan Soomaaliland dadka shacabka Soomaaliyeed ee halkaas ka shaqaysanayay iyadoo maanta tarxiil iyo ururiyo musaafiriin ku bilowday sida markaana iyanu aaba yeelaynin dumarka ciyaalada wata aryaamada iyo dadka waayeelka ah halkan waxa uga jeedaan dad caruur wata iyo dad dhalinyaro ah oo nin darajo sare wata oo ku garaacayo waxa kale oo u jeedaan halkan ku arki doontaan dad curyaam ah oo si khasab oo jujuba lagu saaro gaariga dushiisa Somaliland ayaa waxa asxaana u turinsha u sameeyeen dadka Soomaaliyeed ee gobolada ka shaqaysanayay halkani maaha khaliijka maana Saudi Arabia ee waa gobolada kamid ah Soomaaliya oo si arxan darro loogu geysanayo shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyin ay xamili karin lama oga hantidoodii iyo noloshoodii meesha ay ka shaqaysanayeen iyo hantidii u taalay goboladaas sida laga yeeli doono laakiin waxa uu walaalaha ka bilaamay dhammaan gobolada Soomaaliland ay gacanta ku hayso iyadoo nafar lagaga tagi doonin dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku noolaa halkan noloshu way adag tahay marka aad eegto sida loo dhaqmayo dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee goboladaas ku noolaa hore ayay Somaliland u sheegtay inay shakhsi kaga tagi doonin u dhashay koonfurta Soomaaliya goboladeeda hore ayuu maamulka Somaliland uga soo masaafuriyay gobolada Sool iyo Sanaag boqolaal kun oo Soomaaliyeed oo halkaas ka ganacsanayay iyo kuwa noloshooda ku dabiri jiray goboladaasi dadkaas oo la keenay magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Garowe ayaa maamulka Puntland u sameeyay soo dhaweyn ballaaran halkaas oo ay kala doorinsiiyeen inay ku noolaadaan Puntland iyo in loo diro goboladii ay ka soo jeedeen dadkaas waxay u badnaayeen dadka degan gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maamulka Muuse Bixi ayaa caadaystay in dadka shacabka ah ee birmigeedada ah ee Soomaaliyeed lagu masaafuriyo gobolada uu ka taliyo isla markaana lagu dibindaabiyo ma cadda xaaladdu siday noqon doonto iyo sida dawladda federaalka ee Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland ugu gurmato dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu soo wajahday waxaase idin muuqata in dadkan aan wax asxaana loo sameeyo isla markaana ay waxba sidan waxa arkaysan nin qof beeshin wata isla markaana iyo dad ciyaal iyo haween iyo dad aad u dhibaataysan oo gaariga yar oo aad iyo aad u yar lagu rasaynayo si xoolihii u daawadayaal waa caaqilkiyo hiil qaran oo idinla sheergaraya si dadka bini'aadanka ah masaakiinta Soomaaliyeed walaalahna lagu gurmado gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed oo gaarsiiya si mataqaana kaliya laaba aad iyo aad baan idin salaameynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.